وامر كلا إيمالين كلا برنامج كيني أميري إيمانتا مصاريد عداوة إنه ما دحيس مصر عداوة إنه ما دحيس مصر وحبل الله وايس عبد العزيز سيسي أنا لو مقعسين أنا لو حقن توبي أنا لو قدري سياسة صاحب جوتها من لكن جوتها لا أنا دجال سكية قليل وأن هرومر قارن madaxweynayaasha Soomaaliya Masar iyo Eritrea ayay maanta wada hadallo cusub oo xasaasi ah waxay ugu bilaabanayaan magaalada Asmara ee caasimadda Eritrea madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shalay gaaray magaaladaasi Asmara halka madaxweynaha Masar Abdul Fattah al-Sisi uu maanta ku sii jeedo magaalada Asmara si uu uga qayb galo wada hadallada ka dhacaya magaaladaasi Asmara waxaa safarkan madaxweynaha dalka Masar uu ku tagay magaalada Asmara xaqiijiyay afhayeenka al-Sisi haddaba maxay tahay faa'iidada ugu jirta Soomaaliya maxaa laga filan karaa inuu ka soo baxo shirkan isbahaysiga saddex geesoodka waxa kaab Soomaali TV ee la dhaxqaatay mikrofoonka dadka ku dhaqan magaalada Muqdisho oo ah fikirkooda ka dhiibtay waa dhawaad Eritrea iyo Soomaaliya iyo Masar xiriirashooda ka furan Asmara fikirkayga anigu waan ka qabo waxa waaye inagu Soomaali baana Eritrea xad ma wadaagno Masar xad ma wadaagno danaha isa sursuran ee geeska Afrika ka dhaxeeya ama mandaqadan Carabta tusaale markaan soo qaatay ninka la yiraahdo Abdul Aziz Sisi oo kale oo Masaariga waxa uu jirta nimanka la yiraahdo Palestine oo qasa inta hadda gurigaasi inoo jireen la bay u jiraan guud baa layna wana haran garaacada albaabadiisa noo furi karo hatta humanitarian system ka waxyaabaha loo baahan yahay oo shacabka bini'aadanimadu uu ka xiray كما أنا أقول من نص منا مايا عبد العزيز سيسي وكذا قال يا ولد النيل كا ويتوبيا سبايستان إنه مركا أنا نص واحد حمرو إلى صوماليا شلعسن أو كروس فاي أنا أقول قليل تقال لما جيسوا يسقي توبيا تقال كم حين نص صهروا أو عاصمة الصومالية بتوع صهروا أبسولة الحرامي شعب الصوماليين إنه مقعسية معها توبيا علم هي حاجة يوم ثانية توبيا وابن علها تبي والدولة فعوين حدود وحنا لو ذاقنا إلى 500 كيلومتر أما 600 أما 700 كيلومتر وأنا له الدجال هذا ما نحمري والسبب السبب وكلا أما الدجال كلام قبل يوجد ذي ويراو حقول أنت بسملي يروح لكن حلقة الدولة بانوا لهاي بلا سعطة دولة حكم ضم لهاي عند السوان وجهي وحكير 700 كيلومتر تانجي الصومالي وجهي لما هذا مركب كل سجال بالتضوات الدوادي وحلاقة هذيا لما كن لما سنة يعفر تبع هذا الرجال هذيا حنا كنوديسن حنا هاي سنة يا الله يرسلك الكرا يا نورون يا نودر إنه كل جرام ينماها ما صار وحبنا ما هيسو إثيوبيا إنه قدر ترفع طبعا إثيوبيا سكت دفعنا ما هي سنة بقى تانك إثيوبيا أبو ساق صورة هل كانوا يمنع يا كده بقى وان هو أنا عندي كل علني أبو صورة تانك إثيوبيا 1 مليون عيدنا هستا oo qalabka casriga ah adduunka hadda isku laayay ku hubaysan Masar markii inaan ugu cariso was meel ku jiro oo ku qaniini rabeen hadaad cariso oo meel iska hurda oo ku qaniina marka ama cadhuuf kugu tuf ama uu ku qaniin ama carruurta kaalay marka hadaadan diri karin oo madax ka goynin waa inaad iska deyso oo xasaradaada ka reebato si uu kugu carar Masar markii Ethiopia inaan ugu carin waxaan soo qaadanayaa tusaale soo qaadanayaa Soomaaliya ma burburay 1991 ma burburay carruuraha xadka ka gudba oo بريان عربتا وطن عسكر جدا وعربتا وتهريب يجوا شيء بس ما جروك صح حرام بالوس دادين شيء ما أنا اللي معلوم ضمن بريان يجوا شيء بس اللي تبلاه حرام وحتى بورصة اللي جرى هبتي يا جروم بدن وحرام بالوس دادين شيء أرجيسة يمكن توبي قحطي بقى ويكونوا لي حاجات كتير ما دنا ودي تلقي نبى بربور لا ودي نبى الله كتير ودي إلى هذا يكونوا لي سرقنا نبى كلي كان يوصلوك مصر وحبل الله وايس عبد العزيز سيسي أنا لو مقعسين أنا لو حقن توبي أنا لو قدري توبي هذا العلا هنشتي عدو وقع صومالي حكمان بعض أما والله الصباح أما والله السقاء توبي مرة أنا طبطي صنوع ونسكي عليك الرهاء ونسكي علينا لكن هذا حوار نمال وصنبا إرتري صومال أبو ورد علا نبا أنا صومالي علا ما هنكاس أنا كاس كشهربا ومري قاله عدو دونا ملح كلفته لكن أنا علا نبا طبعا علا لا أنا عبد العزيز سيسي علا نوقدي عيا الصومالي ده مو في عين maxaa yeelay inaga cadaawad joogto ah oo 700 ilaa 600 sano gaartay baa Ethiopia inoo dhaxaysa sidoo kale way inala wadaagaan Eritrea colaadaas oo kala ka dhaxaysa masaaridu waa dad saaxiibtinimo dheer
iyo waqti badan aan wax wadaagnay ayaga inaan isbahaysano dan baa inoogu jirta Itoobiya wax u dhimisteeda iyo wax u dhimis la'aanteeda ma iskaashiga innaga wadamadan xeebta badda isla haysta badda cas oo awalba dhaqan ahaan isku dhawaa waxyaabo badanna wadaagay oo taariikh iyo soo jireen ah inay isku xiran yihiin oo iskaashi leeyihiin way fiican maya waxtar iyo waxtar la'aan ma aha masaarida cadaawad inooma dhaxayso masar cadaawad inooma dhaxayso xilliyo badan oo wax wadaagnayna way jiraan taariikhdii hore dib marka loogu noqdo gobolkan Afrikada bari inta badan waxa laga xukumi jiray masaarida Soomaalidu xiriir badan bay la lahayd dawladaha Turkiga iyo masaarida labadaba ama dawladda Cismaaniyiinta ha noqdeen ama xilligii Fircawn baa noqotay xiriir baan leenahay xiriir dhaqan baan leenahay wax baan wadaagnaa laakiin wax cadaawad inooma dhaxayso Itoobiya cadaawad soo jireen inoo dhaxaysa dawladihii yaryaraaya Soomaalida hore halkan hadda inay qabsato ay rabto saylac ka dhisnaa col bay laahay dagaal baa ka dhaxay isu sheeg ma garanaysaa soo jireen waay dagaalkii 77 ma jiray ka hor baa jiray xilliyadii amiiradii Soomaalida ayaa kuwii masaarida oo herer deganaa baa jiray col baan nahay Itoobiya col aan dhamaanaynin baan nahay wadamadana saaxiib baan nahay oo haddii waxna taraan iyo haddii kale aan kuba xirnay shirka waxaan ka filaynaa inagu dawlad tabar yar baan nahay inay inaga garabsiyaan hadday Itoobiya inala dagaasho waan rabnaa wax kale oo waxyeello aan ka filaynana mabale ayaga cadaawad iyo colaad inooma dhaxayso marka wax baan ka filaynaa uu inoo wanaagsan yahay Soomaaliya magacayga waxa la yiraahdaa Bashiir Raaga Barrow waxaan rabaa inaan ka hadlo saddexda madaxweynayaal ee ku kulmay Eritrea waa aad iyo aad bay u fiican tahay Xasan Sheekh inuu ka qayb galo kulanka noocaas ah oo madaxweynaha Masar iyo madaxweynaha Eritrea isugu imaanayaan sababtoo ah annaga waxa waaye duulimaad nagu ah Ethiopia waagi dambe waxaan ahayn dad maaragtay isku wanaagsan laakiin marka ay damaca siyaasadeed ay rabaan inay ku qaataan badiyada iyo dhulkayaga waxa weeye waa ka soo horjeesanay waxa weeye marka dagaal baa naga dhaxeeya aniga iyo ayaga marka waxaan falayaa madaxweynaha iyaga Soomaaliyeed Xasan Sheekh in uu maaragtay uu wadanka maaragtay uu kiciyo uu shacabka uu la hadlo oo diyaar u noqdaan inaan iska dhicino Etoobiyaanka waayo Etoobiyaanka waxa waaye waa cadow soo jireen ah marka haddii ay rabaan business waa la samaynaynaa haddii ay rabaan dagaalne abayaasheen iyo awowayaasheen berigii hore way iska saareen way la dagaalameen wixii awowayaasheen iyo abayaasheen ay nooga tageen bay rabaan hadda inay nagu qabsadaan marka waa iska celinaynaa waxaana la yidhi carabtu waxay ku maamaadaan ما فيش محبة إلا عداوة annaga waxa waaye dagaal sokayaan galnay waxa weeye in maaragtay dagaalka sokeeye ka bacdi qola aan dagaal sokeeye gelin oo aan horumar gaarin ma jirto marka waxa weeye dagaal sokeeye marka aad ka soo baxdo waa inaad civilized noqoto oo dagaalka iyo wuxuu uu daaran yahay iyo wax walba aad ogaato waa inaan heshiino waa inaan isku wanaagsanaano waa inaan walaalo noqono markaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijkeena Amiiri maanta intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa Amiiro nabadgelyo